tiimka gal ganacsi fikradaha aad soo kordhiseen iyo ganacsiga aad u qoondayseen keliya in aad barnaamijyo ganacsiga waxtar leh aad bulshada usoo bandhigtaan aad iyo aad ayaan kaga mahadcelinaa. Muxuu ahaa qofku uu dareemayo xorriyad dhaqaale, uu dareemayo xorriyad maskaxdiisa ay degnaan qaadayso, qofka caafimaad ku jiro. Inta badan haddaad isku fiirisid qofka shaqaalaha ah ee u shaqeeya hay-adda caymis ku jirta iyo hay-adda aan caymis ku jirin, shirkaddu sidaan hore usoo sheegnay waxay ku dhaqantaa ama bees u ah shareecada islaamka ee diinta islaamka, waxayna ku dhaqantaa caymiska diinta islaamka ee gashahay ee takaafulka. kaarkaaga haddaad isticmaashid oo si qaldan u isticmaashid ama qof aan adiga aan ahayn aad ku daaweysid ama ilmahaagii ku jiray ama ilmo kale aad ku daaweysid, iyada naftigeed xaaraan ay ku tahay qofka isticmaalayo caymiska. kulan wacan daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijka kaamirada gal ganacsi oo toddobaadkii maanta oo kale aad ka daawataan kanaalka arrimaha dhaqaalaha iyo ganacsiga ee gal ganacsi. alaa barnaamijka kaamirada gal ganacsi ayaan waxaan ku booqanaa xarumaha ganacsiga sida supermarketyada, moolalka, carwooyinka, hoteelada, maqaayadaha, goobaha waxbarashada iyo weliba goobaha bixiya adeega bulshada sida goobaha waxbarashada iyo kuwa caafimaadka. toddobaadkan barnaamijkeena waxaa marti nooga ah shirkadda caymiska ee Baraka. mar kale kusoo dhawaada barnaamijkeena kaamirada gal ganacsi. Baraka Insurance waxay ka mid tahay shirkadaha caymiska ee ka howlgala gudaha dalka Soomaaliya iyo qaybo ka mid ah Bariga Afrika. goorma la furay Baraka Insurance ta ka shaqeysaa sidee bulshada Soomaaliyeed ama faham noocay ah ayay ka haystaan caymiska? su'aalahaas iyo su'aalo kale waxa inooga jawaabaya oo barnaamijka kaamirada gal ganacsi la hadlay Saadam Xuseen oo ah madaxa fulinta shirkadda Baraka Insurance. bismillahi raxmaan raxiim. shirkadda caymiska Baraka waa shirkad ka mid ah shirkadaha caymiska ee waddanka ka jiro. waxaa la aasaasay 2018 waxay baraanjiyo ku leedahay magaaladan Muqdisho, haatan aan joogno headquarterka Hargeysa, caasimadda Hargeysa, magaalada Berbera, sidoo kale magaalada Garowe ee caasimadda dowladda Puntland ay ku leedahay, iyo Nairobi oo claim office management uu ku yaalo. intaas waxay xarumo ku leedahay gobolada kale, isteedada kale dad baa u joogo oo wakiil u ah. xilligaas ayaa la aasaasay shirkadda sidaan soo sheegnay 2018. waxyaabaha ay qabato ama bixiso waxaa kow ka ah caymiska caafimaadka, caymiska safarka, caymiska gaadiidka iyo caymiska muxuu ahaay rarka ay sidoo kale bixisaa. shirkaddu sidaan hore usoo sheegnay waxay ku dhaqantaa ama bees u ah shareecada islaamka ee diinta islaamka, waxayna ku dhaqantaa caymiska diinta islaamka ee gashahay ee takaafulka. kaasi ayaana ku dhaqantaa. macaamiil fara badan ayaana ku xiran, waxayna xarunteedu ugu weyn ku taallaa magaalada Muqdisho. wallahi farqi weyn u dhaxeeyo. inta badan horta dadka ardayda jaamacadaha waxaa moodaa inay xoogaa faham yar ay ka haystaan, inkastoo aan fahamkooda uusan gaarsiisnayn meeshii la rabay. dadkii hore wax bartay xilligii dowladdii kacaanka joogayna caymiska si fiican ay u garanayaan. maxaa yeelay dowladdii kacaanka waxay lahayd caymis qaran oo qofku ku jiro uusan u baahnayn inuu isbitaal tago ama lacag u baxsho. caymiskaas hadduu ku jiro caymis dowladda oo lahayd uu ahaa. magacaaga maqan sarteeda waxay ku taallaa magaalada Muqdisho. saraha caymiska gadaal ayaa laga dhisay oo waxaa loo dhisay markii dowladda dhici rabto la dhisay, laakiin sar kale weyn waxaa jirto ku taalo Shangaani Xamarweyne agaarkaas oo hadda burburtay oo caymis shirkad hay'ad caymis weyn National Health Insurance Soomaaliya weynaa ay ku taalay. dadkaas dadkii xilligaas joogay fahanay ka haystaan, laakiin dadka hadda bulshada inta badan waxay qaarkood u haystaan qaarkood waxay kula soo boodayaan caymisku waa xaaraan. marka u sharaxid kadib afahansiisidna waxay ku leeyihiin ma ogeyn inuu jiro caymis islaam. qaarkood waxay ku leeyihiin maba forex dhibaato badan ee forex bulshada ku qabatay. marka waxyaabahaas oo jiro dhan marka wacyigelin badan aan soo binay. hadda sidoo hore maahan, bulshada dad badan waa fahansan yihiin, gaar ahaan dadka u shaqeeya hay-adaha oo ah hadeertaan macaamiilka ugu weyn ee caymiska ee Soomaaliya. inta badan xog fiican ayay ka haystaan, iyo dadka dowladda naftigooda u shaqeeya ama hay-adaha dhaqaalaha waddanka u shaqeeya xog badan ayay ka haystaan. laakiin hadda saan kusoo sheegnay waxaan soo wadnaa mashruuc hay-addaasi naga maalgelin naga caawinayso bulshada si guud wacyigelin aad iyo aad u fara badan lagu siin doono, gaar ahaan caymiska caafimaadka. ayaan dhexdaas waxaan qabanay 5tii bishii May barnaamij aragti wadaaga oo ku saabsan caymiska shaqaalaha iyo dadweynaha mid guud ah. bulshada aan ka wacyigelinaa caymisku wuxuu yahay, faa'iidadu leeyahay qofka ku jiro. waxaan u sheegnaa in uu muxuu ahaa qofku uu dareemayo xorriyad
dhaqaale uu dareemayo xorriyad maskaxdiisa ay degnaan ay qaadayso qofka caafimaad ku jiro inta badan haddaad isku fiirisid qofka shaqaalaha ah ee u shaqeeya hay-adda caymis ku jirta iyo hay-adda aan caymis ku jirin isku mid maahan oo xataa isku firfircooni maahan bulshada waxaan ka wacyigelinaha inta badan siday u geli lahaayeen caymis siday u isticmaali lahaayeen caymiska siday u dhoori lahaayeen xuquuq asa naftigiisa xuquuq waxaa jirta qofka markuu caymisku galo oo laga rabo inuu dhooro oo ah daacadnimada maanta ad kaarkayga haddaad isticmaashid oo si qaldan u isticmaashid ama qof aan adiga aan ahayn aad ku daaweysid ama ilmahaagii ku jiray ama ilmo kale aad ku daaweysid ida naftigeed xaaraan ay ku tahay qofka isticmaalayo caymiska waxyaabahaas o dhan ka wacyigelinaa waxaan ka wacyigelinaa in muxuu ahaa caymisku muhiim uu yahay wacyigelin badan aan suubinay sidii hore dadka xoogaa waxaa moodaa inay kasoo kabanayaan sidaa soo sheegnayna somaliland wacyigelin aad u fara badan ayay suubisay dowladda soomaaliya haatanna dhalan doontana iyo xeerka caymiska lasoo saaran waxaan ka rajeyneynaa inay caymiska ay hore usii wadi doonaan insha allah tacaala hiigsigeena ugu weyn waxaa weeyaan inaan gaarno inta badan gobollada soomaaliya inkastoo hadda aan wada joogno isteedyada sii daadejino ilaa ay heer tuulo insha allah tacaala dadku ay fahmaan oo xitaa aan gaarno xataa inaan caymin karno xoolaha adduunka xoolaha geela yaariga iyo lo-da iyo waa la caymiyaa wax laga caymiyaa abaar markay jirto waa laga caymiyaa muxuu ahaa markii cudurro ay ku dhacaan marka heerkaas inaan gaarno ayaan rajeyneynaa waxaan kaloo rajeyneynaa oo muhiimadda ugu weyn oo ah in dadka soomaaliyeed ay fahmaan faa'iidadu leeyahay caymiska oo yoolkeena ugu weyn aan aragno dadka soomaaliyeed oo tartamaya inay caymis galaan iyo wixii lamid ah aad iyo aad ayaa umahadsantihiin barnaamijka tiimka gal ganacsi fikradaha aad soo kordhiseen iyo ganacsiga aada u qoondayseen keliya in aad barnaamijyo ganacsiga waxtar leh aad bulshada usoo bandhigtaan aad iyo aad ayaan kaga mahad celinaa asalaamu ullahi calaykum adna daawade jaaniskan oo kale oo ku siinaysaa gal ganacsi haddaad leedahay goob ganacsi sida carwooyinka hoteelada maqaayadaha subermarketyada iyo waxa la midka ah iyo sidoo kale goobaha bixiya adeega bulshada sida goobaha waxbarashada iyo weliba goobaha kale ee caafimaadka guud ahaan barnaamijkeena kaamirada gal ganacsi toddobaadkan halkaas ayaa ku ekeynaynaa waxaana marti noogu ahaa shirkadda caymiska baraka xafiiskeeda muqdisho baraka insurance ayaa ku taalla magaalada muqdisho gaar ahaan isgoyska kilometer 4 intaa barnaamijkan oo kale aan ku kulmayno waa bahdii barnaamijka kaamirada gal ganacsi oo idin leh amaano allah